ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee wadankani Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay madax ka socotay jaaliyadda Somali Community Board ee gobolka Western Cape. kulankan oo ay ka soo qayb galeen madaxda ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee wadankani Koonfur Afrika iyo xubno fara badan oo isla ururka ka tirsan ayaa waxa looga hadlay in jaaliyadda Somali Community Board ee wadankani Koonfur Afrika iyo ururka suxufiyiinta wadankani Koonfur Afrika ay si wada jir ah u adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada joogtada ah loogu geysto wadankani Koonfur Afrika. furitaanka shirkani ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee wadankani Koonfur Afrika Cabdikariin Mursal Faarax oo si kooban uga warbixiyay ujeedada shirka loo qabtay iyo waxqabadka ururka muddadii uu dhisnaa. inta kadib gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ayaa jagooyin hor leh u magacaabay laba suxufi oo hore uga tirsanaa ururka kuwaas oo kala ah Cabdinaasir Sheekh Cabdikariim oo loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda ee ururka suxufiyiinta South Africa iyo Cabdullaahi Maxamuud Amiin isaguna loo doortay la taliye gudoomiye. waxa kale oo uu mahad celiyay gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board ee gobolka Western Cape Cabdi Jiido kadib markii uu aqbalay casuumadda ururka u fidiyay isagoo gudoomiyaha halka ka jeediyay hadallo kooban oo nuxurkiisu u ahaa in uu la shaqayn doono cid waliba u adeegaysa danaha ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika. horta waxa farxad weyn ah in aan maanta la fariisto dhalinta yar mustaqbalka iyo aayaha iyo horumarinta Soomaaliyeed isu xil saaray ee suxufiyiinta gobolkan Western Cape in aan la kulmay ayaga oo hoggaan leh gudoomiye leh afayeen leh secretary leh treasurer leh rag iyo dumar ay isugu jiraan. waxaa mahadi ah inaan horta la fariisto mahad weyn baa ii tahay waana idin mahad celiyay. waxaa loo baahan yahay dadku inay wax wada qabsadaan in ay noqdaan dad meel ka soo wada jeeda. maxaa inoo xal ah maxaa inoo dan ah maxaa horumar inoo ah maxaa waxtar inoo ah hadafkeenu inuu taas noqdo. aniga shakhsi ahaan hadaf ahaan waxa weeye hadafkaygu lay wada amaani maayo ayaa lay wada caayin ummadda inaysan ay wada caayin baa hadafkaygu yahay laakiin inay wada amaanaan ma sugayo. waxaa la yidhi nin xil qaaday eed qaad. idinku shaqooyin badan baad soo qabateen anigu ma qaban inta aad soo qabateen. horta waa idin mahad celinayaa nin da'diisu yar tahay oo intaasoo raadiyo intaasoo meediyo intaasoo maaragtay website ka soo shaqeeyay da'diisuna aysan gaarin 30 sano. horta u mahad celinayaa. si kastaba ahaatee ururka Somali Journalists of South Africa ayaa waxaa siyaabo kala duwan u aqoonsaday qaar ka mid ah ururada siyaasadeed iyo waliba kuwa suxufiyiinta ee ka jira wadankani Koonfur Afrika iyadoo haatan la sugayo in dawladda wadankani Koonfur Afrika ay gacanta u soo geliso shahaadada aqoonsiga ee ururkaasi uu iska leeyahay sida uu sheegay gudoomiyaha ururkaasi Cabdikariin Mursal Faarax. Cabdinaasir Somani Universal TV Johannesburg Koonfur Afrika.